Wasiirka Arrimaha Gudaha Galmudug Cabdi Maxamed Jaamac Waayeel ayaa ka warbixiyay howlgallada ay wadaan ciidamada amniga ee lagu baadigoobayo kooxihii ka dambeeyay dil dhawaan loo geystay saraakiil ka tirsan ciidamada xoogga dalka kaasoo ka dhacay gobolka Galgaduud ee bartamaha Soomaaliya. Wasiir Waayeel oo ka mid ahaa guddigii loo xilsaaray dhacdadaasi ayaa warbaahinta kula hadlay magaalada Dhuusamareeb waxaana uu sheegay in weli ay socdaan dadaalo ku aadan sidii loo soo qaban lahaa dadkii ka dambeeyay dilkii dhawaan loo geystay saraakiil badan oo ka tirsan dowladda Soomaaliya kaasoo ka dhacay duleedka degmada Balanballe ee gobolka Galgaduud ee bartamaha Soomaaliya. Wasiir Waayeel ayaa sheegay in saraakiisha la dilay ay ahaayeen kuwo u shaqaynayay qaranka sidoo kalena ay ku howlan yihiin sidii cadaaladda loo horkeeni lahaa dadkii ka dambeeyay dilkaasi. Sidoo kale waxa uu sheegay wasiirka in howlgalladii ugu dambeeyay oo ay sameeyeen ciidamada dowladda Soomaaliya iyo kuwa Galmudug lagu soo qabtay dad lagu tuhmayo inay ku lug leeyihiin weerarkaasi lagu xasuuqay saraakiishaasi ka tirsanaa dowladda Soomaaliya. 9 bishan aan ku jirno December 2020 ayaa weerar ka dhacay duleedka degmada Balanballe ee gobolka Galgaduud waxaa lagu diray saraakiil ka tirsan ciidamada militariga Soomaaliya xilli ay ka yimaadeen xirada tababarka ciidamada ee Harqaboobe ee duleedka degmada Guriceel ee gobolka Galgaduud. Dhinaca kale ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble oo 3 maalmood ee ugu dambeysay ku sugnaa magaalada Garowe ayaa maanta gelinkii dambe lagu soo dhaweeyay garoonka diyaaradaha magaalada Dhuusamareeb. Soo dhaweynta ra'iisul wasaare Roble ayaa waxaa ka qayb galay madaxweynaha maamulka Galmudug Axmed Cabdi Kaariye Qoorqoor iyo golihiisa wasiirada. Ra'iisul wasaaraha dalka Soomaaliya ayaa 3 maalmood ee ugu dambeysay ku sugnaa magaalada Garowe waxaana halkaasi kulamo uu kula yeeshay madaxweynaha maamulka Puntland Saciid Cabdullaahi Dani ku-xigeenkiisa Axmed Cilmi Cismaan Karaash iyo ismada Puntland waxaana kulamadii dhammaan uu ra'iisul wasaare Roble oo ku soo yeeshay Garowe ay ahaayeen kuwo ku soo dhamaaday natiijo la'aan. Ra'iisul wasaaraha dalka ayaa la filayaa intuu ku sugan yahay magaalada Dhuusamareeb in kulamo la xiriira arrimaha doorashooyinka uu la qaato maamulka Galmudug iyo ururada bulshada rayidka ku sugan magaalada Dhuusamareeb. Ra'iisul wasaare Roble ayaa ah safarkii ugu horeysay oo ku tago deegaanada Galmudug tan iyo inta loo magacaabay xilka ra'iisul wasaarenimo. Haddaba la arki doono natiijada kama dambaysta ay ka soo baxday shirkan maanta amba safarkii maanta uu ku tagay magaalada Dhuusamareeb ee gobolka Galgaduud walow dadka ay sheegayaan in maamulka Galmudug uu yahay mid u xaglinaya dowladda federaalka Soomaaliya oo majaraha u hayo Maxamed Cabdullaahi Farmaajo.